ururka samafalka Tawfiiq ee ka howlgala goboladan Awdal iyo Salal ayaa maanta deeqa kala duwan oo lacageed oo ka kala timid dunida dacaladeeda isla markaana ay soo direen qaar ka mid ah qurbo joogta Soomaalida iyo kuwa gudaha ku dhaqan oo ka danqaday xanuun xoogan oo gudaha Boorama ku haysta Barre Xasan oo ah nin oday ah isla markaana jirkiisa dubku uu ka dhacayo wuxuuna xanuunkan sababay inuu ku waayo aragtida mas'uuliyiinta ka tirsan ururka samafalka Tawfiiq ee maanta lacagtan gaarsiiyay ayaa waxay ka waramayaan cadada lacagtan iyo halka ay ka kala timid waxaana hadaladooda kamid ah hada ilaahay baa iskale maanta waxaan la joognaa adeero Barre Xasan waxaan gaarsiinaynaa lacag naga soo gaadhay daafaha adduunka lacagta ugu horeysana adeero gaarsiinayna tiradeedu waxay tahay $775 $775 baan adeero u tirinayaa 1 2 3 4 5 6 7 konton 25 waxaan adeero u tirinaynaa oo kale $520 $520 waxaan looga dhiibay magaalada Boorama 20 qof baa loo dhiibay guri baa loo dhiibay konton aanay gabadhii dhiibtay $450 ee kale waxa weeyaan konton iyo boqol bay ku yimaadeen dadkii soo dirtay iyaga ayaa garanaya ilaahay bayna u dhiibanayeen 1 2 3 4 5 iyo 20 adeero waxa kale oo ku wareejinaynaa adeero $170 oo ka yimid hablo muxsiniin oo jooga magaalada Luton ee UK tirsadeero ayaan waxaan ku wareejinay 1610 oo ah lacagta maanta oo kaliya tan loo dhiibay waxaan ku wareejinay gabadhiisii ayaan oo ah xaaskan ag jooga iyada maanta haysa waxaana jiray $400 oo hore oo lagu geeyay dhakhtar imkana waxa uu dhiman hadii ilaahay uu dali ka raali noqdo in dhakhtar indhood la geeyo waxaan ilaahay wada badan uga baryaynaa intii soo bixisay iyo inta niyada ku haysta in ilaahay dib dhaaf ka siiyo iyo kuwa soo caawiyay baa Allah caawi Allahumma barakaatu fi ma atayt ilaahay fi aakhirada ba caawi Allahumma salli ala Muhammad Abdi Fattah Ahmed Hadwanaag News magaalada Boorama